si haddaba dhegaystayaal aynu u fahamno xaaladda Soomaalidaha qarnigan dhamaanaya ee 20aad sida ugu bilaabmay waxaanu u baahanaynaa inaynu ka soo bilowno qaybtii ugu dambeysay ee qarnigii ka horeeyay oo hakii 19aad intii u dhaxaysay sanadkii 1860 ilaa 1897 waxa dhulka Soomaalida iyo gobolka uu ku yaalaba uu noqday mid loo galo tartankii xagga gumaysiga xilligaasi wadamada u tartamayay inay gumaystaan gobolkaasi waxa ahayn Ingiriiska, Faransiiska, Talyaaniga, Masar iyo Ethiopia. haddaba sanadku markuu ahaa 1859 ayaa Faransiiska qunsul u fadhiyay magaalada Cadan uu ogolaansho uga helay cafarta magaalada Obakh in Faransiisku uu yimaado 3 sano kadibna Faransiisku waxa uu canfarta uu ka iibsaday Obakh kadibna calankii Faransiiska ayaa halkaasi laga taagay hase ahaatee Faransiisku waxa inuu ka faa'iideysto uu bilaabay 11 sanadood kadib markii la furay Suez kanaalka waxaana halkaas ay Ethiopia waqtiyadaasi ay ka wada sameeyeen sharikad xagga ganacsiga ah oo ka dhaxaysa labadooda. dhinaca kale haddii aynu eegnana Talyaaniga ayaa isna bilaabay sidii uu meel uga heli lahaa gobolka Badda Cas waxaana wasiirka arrimaha dabadda ee Talyaaniga waqtigaasi oo lahaa uu awood u siiyay baadari hore u fadhiyi jiray dalka Ethiopia oo la oran jiray Giuseppe Sapeto in Talyaaniga meel uga helo halkaasi 1869 ayaa Mr. Giuseppe uu helay magaalada Layada Casab sanadkii ka dambeeyayna shirkad Talyaaniga oo ku hawlanayd wixii maraya Suez kanaalka oo ku socda India ayaa Talyaaniga Casab uga iibisay canfarta sida taariikhdu ay qorayso. xilligaasi Masar ayaa iyaduna dareentay tartanka gobolka loogu jiro dabadeedna waxa ay soo nooleeyeen Turkiga oo hore isagu u sheegan jiray xeebaha Badda Cas sanadku markuu ahaa 1866 ayaa Turkigu dabadeed Sukayn iyo Musawac oo Eritrea ku wareejiyay dawladii Khadiif Ismaaciil ee Masar iyadu markaasi ka dhisnayd oo iyaduna dabadeed sheegatay xeebaha Soomaalida dawladdaasi Khadiif Ismaaciil barasaabkii u fadhiyay Suudaan ayaa dabadeed sanadku markuu 1887 booqasho ku yimid isagoo ujeedadaas u socda magaalooyinka Tajura, Zaylac iyo Berbera mar dambana waxa la soo diray nin la oran jiray Maxamed Jamaal Bey oo calankii Masaarida isagu ka taagay Bulxaar iyo Berbera. haddaba tallaabadaasi markii Masaaridu ay qaaday taasi waxa ay baraarujisay Ingiriiska oo fadhiya Cadan oo ciidamada ka fadhiya halkaas hilibku uga iman jiray xeebta Soomaalida. Ingiriisku waxa kale oo ay doonayeen in wadan kale oo awood leh aanu qabsan xeebaha Soomaalida gaar ahaan waxa isha ay ku hayeen oo ay ilaalinayeen Faransiiska oo tartan ka dhaxeeyay hase yeeshee Ingiriiska iyo Masaarida ayaa afgarasho ay dhexmartay maamulkii Masaariduna si dhaqso ah ayuu ugu fiday xeebihii Soomaalida 1877 ayaa Ingiriiska iyo dawladii Khadiif Ismaaciil ee ka talinaysay wadankaasi Masaarida ay heshiis kala saxeedeen oo ay isla ogolaadeen in talada Masaarida ay gaadho ilaa Ras Xaafuun dawladii Khadiif Ismaaciil waxaase yeeshee ay ka baxday gobolkaasi markii mahdigii Suudaan uu ku kacay oo iyadu markaasi awoodi kar weyday in ay isballaadhiso intii Masaaridu ay ka talinayeen xeebaha Soomaalidana waxa ay hagaajiyeen waxa ka mid ahaa dekedaha magaalooyinka Berbera iyo Zaylac noobiyado ay dhiseen iyo biyaha macaan ee Dubaar ee magaalada Berbera waxa kale oo ay dhiseen masaajido markii haddaba Masaaridu ay ka baxeen xeebaha Soomaalida ayaa Ingiriisku waxa uu bilaabay inuu heshiisiyo oo la galo qabaa'ilka waqooyiga Soomaalida si uu u ilaaliyo hilibkii magaalada Berbera uga iman jiray ciidamadiisii ka fadhiyay magaalada Cadan oo muhiim u ahayd ganacsiga ula lahaa wadanka India. haddii aynu dub ugu noqon haddaba Talyaanigu markii uu sugay in Eritrea ay mustacmarad u noqoto waxa uu bilaabay inuu ku durko dhinaca Abyssinia ama Ethiopia waxaana uu la galay heshiiskii la oran jiray Ujialia oo Talyaanigu u arkayay in Abyssinia mustacmarad uu uga dhigayo Talyaaniga inkasta oo boqorkii Ethiopia waqtigaasi ka talinayay loo oran jiray Melik uu isagu ku dooday in heshiiskaasi tarjumadiisa Afxmaariga marka la eego aanay sida iyadu ahayn oo markaasi ay u fasaxaysay inuu si toos ah ula macaamili karo wadamada dibadda heshiiskaasi awgi ayaa Talyaanigu u suura geliyay inuu bilow u noqdo inuu ka qayb qaato qaybsigii Soomaalida la qaybsanayay sanadkii heshiiskaasi la galay waa 1889 bishii February qunsul Talyaaniga ka fadhiyay Zanzibar oo la oran jiray Vincenzo Leonardi iyo suldaankii Hobyo Ali Yusuf ayaa heshiis galay Talyaanigu uu ku ilaalinayo sanadka dhamaadkiisina shirkadda Talyaanigu lahaa oo la oran jiray Imperial Bridge East Africa ayaa ka sii kireeyay Talyaaniga xeebaha Banaadir oo uu markii hore ka kireystay suldaankii Zanzibar sanadku markuu 1892 suldaanku waxa uu ku wareejiyay Talyaaniga magaalooyinka Baraaw, Marka, Muqdisho,
warshiikh muddo 25 sannadood isaga oo kaga kireeyey 160,000 sanadkiiba waa lacagta liirahe. haddii haddaba aynu dib ugu laabano abasiiniya amaba etoobiya markii uu arkay damcii reer yurub ayaa boqorkii etoobiya ka talinayay wakhtigaasi Menelik waxa waraaqu u qoray dalalka awoodda lahaa wakhtigaasi jiray sanadkii 1891 warqadaasi waxa uu ku yidhi etoobiya muddo 14 qarni ah ayaa waxay ahayd jasiirad ku dhex taala dad cawaana haddii wadamo meel fog ka yimi ay u yimaadeen inay Afrika iyagu qaybsadaan kuma tala jiro in aan noqdo ruux daawanaya oo aan danka lahayn. dagaalkii cadwa ee dhex maray talyaaniga iyo Ethiopia sanadkii 1896 ayaa haddaba tirtiray sheegashadii talyaanigu uu sheeganayay Ethiopia inay mustacmaradu tahay. dagaalkaasi oo talyaaniga laga adkaaday kadib markii talyaanigu lagu jabiyay dagaalkaasi cadwa waxa uu u howlgalay sidii uu sii haysan lahaa dhulkii Soomaalida ee uu qabsaday. nin la oran jiray Major Nerozani ayaa wada hadalla dhinaca talyaaniga u galay waxaana Ethiopia talyaaniga ay ku khasabtay inuu yareeyo dhulkii uu sheeganayay ee Ogaadeenaya. dhulkaasi oo heshiis hore Ingiriiska ay wada galeen sanadkii 1894 Ingiriisku uga ogolaaday. sanadku markuu 1897 ayay Ethiopia iyo Ingiriisku waxay wada galeen heshiis tusmeynaya sida ay u kala leeyihiin dhulka Soomaalida. hase ahaatee Soomaalidu waxay u ogaatay waxa dhacay 38 sannadood kadib markii la isku dayay in soodinta u dhaxaysa la calaamadiyo. sheekadaasi marka aynu soo gaadhno ayaynu haddaba ku soo noqon doonaa dhegaystayaal hase yeeshee haddii aynu ku soo dhawaano qarnigan dhammaaday waxa Soomaalida uu u bilaabmay iyada oo la gumaysto. gumaysigaasi 20 sannadood ee qarniga ugu horeeyay halgankii ugu weynaa ee koor yimid waxa uu ahaa kii daraawiishta ee uu hogaaminayay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. sida haddaba qiyaasu tahay sayidku waxa uu dhashay bishii Abriil 7 sanadkii 1864 waxa uu ku dhashay ceel laga cabo oo ku yaala meel u dhaxaysa Wedwed iyo Bohole. 7 jir markuu ahaa ayuu quraanka barashadiisa bilaabay. 19 jir markii uu gaarayna waxa uu noqday sheekh oo loogu yeeray. intii barashada cilmiga uu ku jiray Sayid Maxamed Cabdulla Xasan meelihii uu soo maray ee uu tagay waxa kamid ahaa magaalada Harar ee dalka Ethiopia, Muqdisho, Suudaan iyo Maka. intii uu joogay Maka waxa macallin oo noqday amaba uu ku xidhmay Sayid Maxamed Saalex oo dariiqada saalixeeda isagu ku abtirsato. Sayid Maxamed Cabdulla Xasan markii uu Berbera ku soo laabtay dhulka Somaliland waxa ugu horeysay dariiqada qaadireeda oo Sheekh Cabdulqaadir Jiilaani uu ku sameeyay magaalada Baghdad ee waddanka Ciraaq. dhulka Soomaalidana waxa hormood ka ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Zaylaci iyo Sheekh Huways Maxamed. Sayid Maxamed markii uu soo laabtay waxa uu isagu u watay dariiqada saalixiyada. waxa uu bilaabay ololo uu Ingiriiska kaga saaray dalka isagoo oo huwan dariiqadiisa saalixiyada. sanadku markuu ahaa 1899 bishii Abriil waxa rasmi ahaan loo sheegay inuu urursaday ciidamo gaaraya ilaa 3,000 oo nin. 1 September sanadku markuu ahaa 1899 waraaq uu soo diray qunsulkii Ingiriiska xeebaha Soomaalida ugu qaabilsana waxa sayidku Ingiriiska uu ku eedeeyay inay cadaadinayaan islaamka waxana uu cambaariyay kuwa gacanta siinayay. warqadaasi waxa uu ku yidhi sayidku imika idinku kala doorta haddii aad dagaal doonaysaanna waa ogol haddii aad nabad doonaysaanna ganax bixiya. maalintaasi ayaa nin fallaaga loo qoray. 20 sannadood oo uu dagaal kula jiray Ingiriiska, Talyaaniga iyo Ethiopia ayaa markaasi bilaabmay. haddaba bal aan idinku wareejiyo Awjaamac Cumar Ciise oo inoo sheega sida sayidku uga baxay Berbera ilaa iyo intii ay dagaalada isaga hor yimaadeen Ingiriiska. anigoo soo koobaya sayidku dhaqdhaqaaqii ugu horeeyay wuxuu ka bilaabay Berbera sida la leeyahay maalin maalmaha ka mid ah ayaa nin baadari isagoo inama dhowra 5 iyo 6 dabada ka wada suuqa marinaya ayuu arkay. markaasuu yiri war waxa kan waa maxay? dee waa diinteennii la soo galay. labada dhagax buu qaatay baa la yiri wuxuu ku dhiftay gaalkii meesha joogay oo baadariga ahaa. wuxuuna yiri ilaahu maantay intaasan awooda. culamadii reer Berbera hadallada la isku jiiray oo dhowr erayo uu sheegay oo yiri baridu waa xaraan, qaadku waa xaraan iyo waxyaabo kamida ayay xoogaa yarahee arrintii la isku maandhaafay. markii dambena
xaalkiisii magaaladii waa ku fiday oo magaalada berbera wuxuu ku noqday nin caan ah oo wax soo wada nin la ohan jiray allahu naxariistay awgaas ayaa xaalkiisii markuu eegay wuxuu yidhi walle ninkan haddaan maanta la qaban meel fog baa laga dooni waa la dacweeyey adigu markuu dareemay inaan magaalada xoogaa yareh laga jeclayn amaan wax ugu soo roobi karin waa ka baxay wuxuu sii maray dhaymoole iyo majacase oo ay ka furayd maaragtay muxuu ahaayey 2 isgool oo baadariya oo ciyaal agoona iyo lagu ururiyey wax lagu baraayey inan buu u yeeray wuxuu yidhi adeer magacaa wuxuu yidhi john baa la yidhaahdaa waagii horena maxaa lagu ohan jiray cali sidaas ayuu usii dhaafay baa la yidhi wuxuu yidhi maanta matanay joogtaa shiikh buu sii maray suldaan nuur axmed ammaan ayuu wuxuu ugu tegey ood weyne wuxuu sii socdaba maxaa yeelay hadalka ayaan soo koobi dabadeedna qolyahaas habar yoonista xoolo badanna waa siiyeen aad iyo aad bay u kaalmeeyeen waana lays afgartay wuu ka tegey xoolihii isagoo wata wuxuu tegey meel la yidhahdo qoryo weyn oo magaalada burco koonfur bari kaga toosan halkaa ayuu ka aasaasay horey buu uga gudbay wuxuu usii gudbay xagga bariga buuhoodle iyo halkaasuu tegey adigu meeshaa markuu joogay xoogaha khilaafyo yar baa dhacay dhowr nin oo dhulbahantaa oo garaad cali uu ka mid yahay ayaa meeshaa ku dhintay horey buu uga tegey markii halkaa u egay dad badan baa raacay adduun badan baa raacay rag iyo maaragtay xoola isagoo wata wuxuu u kacay dal ogaadeen malaha khaaqul buu ka baqay xagga maaragtay nogaasha iyo dhulbahantaha in garaad cali dilkiisii wax kaga yimaadaan wuxuu u tegey nimanka la yidhahdo maxamed subayr gurdume meesha la yidhahdo ayuu xaruntiisii ka dhigtay halkaasna muddo ayaa la wada shaqaynayey hase ahaatee xoogaa ayaa markii dambe khalal ayaa dhacay arrintuna waxay ka bilaabatay nin bahgeriya ayaa markii hore loo diday oo la ohan jiray jijiile markaasaa nin kaleeto ayaa meesha lagu dilay layidhi waa xujoobay la ohan jiray shida dhabar jilic oo xoogaa boqor ahaa goor galaba ayaa uu raggiisi intuu kaxaystay dibadda ula baxay markuu xaruntii ka baxay meel maraayey wuxuu yidhi war shida dhabar jilic jijiile ma u argalaa guraase xaaji cali ayaa la socday oo aanu markii hore arkayn hadalkii ayaa maaragtay muxuu ahaayey xoogaa magaaladii galay dadkii waa la maqlay war ninka kanu ma aha baa la yidhi nin maaragtay muxuu ahay u socda diin fidinteed iyo wax kaleeto xoogaa yarahe halkaa waa laga diday rag baa u tashaday waxay markaa dooneen nimankii maxamed subayr khaas ahaan reer cabdille inay ninkaa ka takhallusaan oo dilaan shirqool bay u sameeyeen waxay yidhahdeen sayidii intaad noo timi laguma dabaal degin waa ku dabaaldegaynaa soo baxo marka balliga imow balligii markii uu yimi fardihii baa loogu dabaal degay markii la rabay in maaragtay muxuu ahay la dilo ayaa nin la ohan jiray garaad ahaayoo reer haaruun ahaa ayaa u digay wuxuu meesha shirqool baa lagaga wadaaye iskaga bax aw cabaas nin la ohan jiray ayaa halkaa lagu dilay dhulbahanta ah oo bahar sama ah dabadeed halkaasuu ka qaxay oo wuxuu u noqday nugaal iyo barbarkaas muddo badan buu hawdkaa ku jiray adigu 2 sano ah jigjiga waa kan colka geliyey colkaa laguma guulaysan dabadeed wuxuu weeraray nimanka la yidhaahdo maaragtay habar yoonis iyo habar awal oo dhinaca isku haya galbeed ayuu ka weeraray nin shariifa ayaa u yimi oo wuxuu yidhi waxaan doonayaa siyaaro xaggee baad ka timi habar yoonis baan la joogaayo nin shariifaan iyo siyaaraan ka qaataa sanadkii qaalin ama 2 laysiiyaa war wejigaa gubaye aan maaragtay muxuu ahaayey ragku siiye xoolaha habar yoonis intaad siyaarada doonayso wax baryayso colkan ka kaxayso xoolo dhacoo 100 halaad la tago faafan iyo maaragtay muxuu ahaye la tag dhulka kan dadkiina degan yahay sidaasuu yeelay col baa lagu saaray habar yoonis waa colka la baxay dayax weerar colkaa geelal badan baa laga qaaday geelii 100 halaad baa laga siiyey baa laleeyahay ninkii la ohan jiray shariifka nin baa halkaa ka gabiyey subaxdaas oo wuxuu yidhi col shariifi wacayso calin reere dhacaaya cilmi geel lagu qaado hasiiskiina abuuradow cimri iyo kusimadoho ciribteeda ogaada dabadeed waa guureen oo waxay tageen buuhoodle markaasaa ingiriisku colku soo saaray oo la ogaaday dhaqdhaqaaqiisii warqado badan oo laga helay iyo weerar laga soo teliyey 1901 maalintay ahayd bishii janaayo ayaa dagaalkii u horreeyey ka dhacay meesha la yidhahdo haradhiig intaas wax dawlad u eg diin baynu fidinaynaa ma aha e wax dawlad u eg ama alabkeed leh lagama maqal hase yeeshee waxaa ka muuqanayay difaac diimeed iyo in diinta la bedelayo oo baadariyo iyo maaragtay kristan uu dhulka soo gelayo dagaalka gaaladu waxay u taqaan siduu qoray Douglas Jardine Samara xaggana waxaa looga yaqaan haradhiig rag badan baa ku dhintay
isku sannadkaas waxaa dhacay afbakayle caana xarigle kurgaraad odagooye fardhidin beerdhiga intaas ayaa sannadkaa dhacay وهاجا كدب هالك عن كوتشو جنا أو جامع عمر عيسى كون يسقال بقول مركي تاريخ هذه لا كون يسقال بقول يا أفرتي يدو تاجر وكهلا إثيوبيا تليانيكا أيا ويرحوجا إنجلس كسيد كوكو قاضي تضبية طبعاً بشي أبريل سنة يكون يسقال بقول يسدح دي سقال سركال يو بقول يسقال يسديت الناس كريو كلا أي إنجليز كلا قدلي sayidka ciidamadiisana iyagana waa la weeqay taasuna waxa ay keentay in heshiis nabadeed uu la galo Ingiriiska iyo Talyaaniga oo uu ku codsado in loo yeelo afar arrimood waa ta koobaad in uu meel ku yeesho dhulkii Talyaanigu xukumayay ta labaad inuu helo xornimo xagga diinta ta saddexaad inuu xornimo u helo iyadana xagga ganacsiga iyo ta afraad oo ahayd inuu xukumo dadkii isaga markaas la socday afarta arrimood oo sayidku codsadayba afartaba waxa laga ogolaaday heshiiskii ka dhacay meesha la yiraahdo Ilig bishii March 5 sanadkii 1905 hase ahaatee sayidka ololihiisii halkaasi kuma joogsan waxa uu ugu kululaa dagaalkii xagga afka ee ay xambarsanaayeen gabayadiisu sida loo arkayba waxa dabadeed dhacday in Ingiriisku uu dib ugu soo gurto xeebahaasi oo uu hubeeyo qabaa'ilkii la jiray hase ahaatee taasi waxa ay dhalisay in qabaa'ilkii la hubeeyay ay bilaabeen inay ku kala aargoostaan utumo hore iyaga u dhex yaalay xilligaasi waxa dhacay waqtigii loo bixiyay حرام عنا أو معلول آد وبعني أي دعدي رسمي أهان إنجليزكو سنتكي كونو يسقال بقول يلبية طبنكي وحا وكو قياسي إن محمية ديسي سدح ميلود ميل أهان دادكي كنولا أي دينتين وحا كلاتا أود عضي إنو سيدكي أسو حوغيستي تاسو وحا كانتي إن إنجليزكو بدل استراتيجية ديسي وحا لابابو لعيدا مأوهو قامدي نكي لأورنجر ريتشارد كوفيل أو يساقو دقال لك علي سيدكا bishii August sanadkii 1913 dagaalka ba'an ee ka dhacay meesha la yiraahdo Dulmadoobe oo bariga magaalada Burco ka xiga ayaa lagu dilay ninkaasi la oran jiray Richard Coffey Sayid Maxamed Cabdalla Xasan gabay dheer ayuu ka tiriyay geerida Coffey Coffey loo jiitayaan dunida joogayne adiga jidkii lagugu waday jimiclaanade جهنم لقيه والآخر جهنم نمكي جنوك عي وربيجرين شالعين كواس النار تجوغيو مركب جنان نبي قادت sidoo bahay ku jirabay mari jawaabteeda tarawiish jigrar nagama deyntani iyo jeerkeedeen jigta weerar bay goor barqa anagu jifeeyeen إنجليز جبيو وها كنا عاي شعي بارود وليجيس بوالغو جب شاجلي نقدولان حدا ليس تكرارين تلكي لغا جلرونان وحينو جنجنتين وجما شدينين أنيقنا جكري لاهلي شلي جهد كدين شينيقا هورتي سير رصاص إيقا قجيدين جيدا يضي إلى الدعين جلي عفكودين وهجاك برنامج كان مكا هالكاس أيان كوشو جينينا وحان هالكا كبلابي دونا مركا برنامج كا قيبتي سلبات